iyadoo wadanku wajahayo xaalad adag ayaa waxaa waalidiinta ismaamulka Gaarisa loogu baaqay in ay garab istaagaan macallimiinta dugsiyadii ay dhigayeen la xiray. Arrintani ayaa ku soo aadaysa tan iyo intii caabuqa coronavirus lagu arkay dalkani Kenya ayaa waxa ay dawladda dalka soo rogtay bandow dhinac walba kadib amarkii madaxweynaha dalka Master Uhuru Kenyatta uu amray in la xiro goobaha waxbarashada ayaa waxa culays weyn soo food saaray macallimiintii dhigaysay dugsiyada quraanka kariimka ah kuwaasi oo uu saameeyay amarkii madaxweynaha dalka Master Uhuru Kenyatta ka soo baxay. Culumadiinta magaalada Gaarisa ayaa ku baaqay in macallimiinta mushaarkii ay qaadanayeen la siiyo waxaana waalidiinta ay ka codsadeen in ay garab istaagaan macallimiintii quraanka ee ilmahooda wax baraysay ee uu saameeyay caabuqa coronavirus. dugsigan ilmaha ay lahaayeen oo waalidka u dhalo lacagta macallinka siinayeen musiibada waa musiibo rabbaani ilaahay uu keenay macallinka ma keenin macallinkan ilmaha ma kala dirin musiibo rabbaani u imaatay yaa kala dirtay waxaan leenahay markaas waalidkii dugsigu ilmaha dhiganayay ha ka goynina macallinkaas dadkooda dadsan macallimiintii inaad waalidow ina goynin masaajidku xasiinaysan muadiniintii iyo imaamyadii iyo macallimiinta dugsiyada waalidkan la hadlayna hadaan nahay culimadii golaha sare muslimiinta meelay joogaanba ama Madeeraha jooga ama Wajeer jooga ama Gaaris jooga nin kasta wuxuu u bixin jiray dar Ilaahay ha u bixiyo Ilaahayna ku bariyo oo ku tawassula inuu Ilaahay cudurkan in soo gaarsiinin ku tawassul Ilaahay waxa leedahay lacagti ma gooyin Ilaahay aayaadkiisa macallinka ibarahay aayaadkaada macallinka ilmaha ibarahay lacagti kama gooyin Allah cudurkan coronavirus iga badbaadiya aniga iyo ummadan ku dhaxnoolnay wadanka iyo caalamka oo dhan. Abdi Asiis Siyaad warbaahinta kulmiye magaalada Gaarisa.